mid ka mid ah mushkiladaha ugu weyn ee ka jira Wallaweyn ayaa ah isbaarooyinka ee reer kasta dhigteen ilinka laga galo tuuladooda bartamaha iyo halka looga baxo tuulada. Si xal loogu helo arrintaas ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida amartay in la qaado isbaarooyinka loona taxaabo xabsiga kuwa maalintan ay salfatay howlgalkan military oo ay fuliyeen urur ka tirsan guutada 7 ee ciidanka xoogga dalka. Taliyaha guutada gaashaanla dhexe Cumar Cabdiraxmaan Abuukar ayaa warbaahinta la wadaagay ujeedka xilligan ka dambeeyay isbaara qaadistooda. waxaan howlgal midaysan ka sameynay sidii loo qaadi lahaa isbaarooyinka oo dhibaatada culus ku hayo degmada Wallaweyn. amarka xeeraliyaha iyo maxkamadda laga bilaabo maanta kadib wax maleeshiyada ku dhaxaysa kara wax huba ma jiraan degmada Wallaweyn. waxaa la farayaa amarkaas inuu fuliyo taliyaha ururka 54 ee guutada 7. sidaa darteed waxaan codsanaynaa dadka shacabka inay kala shaqeeyaan si amni buuxa loo helo degmadan problemkeeda iyo wixii soo laabteen dad badan oo shacab ah waxba galabsanaa naftooda ku waayay aad iyo aad uga xunaa inta ku dhimata Allah u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay caafiyo waxaan rajeyn doonaa insha Allah taala inta waxaas geysatay sharci in la waafaji doono iyo xiraalihii la joogo taliyaha ururkan aan ka rabno inuu shaqadaas qabto qof allaala qofka degmadan dhibaato ku haayo in la dhaafsiyo rajeynayna insha Allah taala. Gaashaanle Maxamed Cabduqaadir Maxamed ku xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada oo howlgalkan isbaara qaadista ah ku wehelinayay guutada 7 ee ciidanka xoogga dalka ayaa mar kale ku celiyay in ciidanka ay u idman yihiin badqabka dadka iyo dalka. waxaan maanta maaragtay soo kormeernay goobihii ay dhibaatadu ay ka taagneed awaamirta maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed oo baxayna aan fiirinayn inuu fuliyo in kala. waxaan ugu mahad celinayaa taliyaha guutada 7 ee qaybta 6aad iyo taliyihiisa ururka iyo dhammaan saraakiisha ka hooseysaba sidii u fuliyeen amarkii maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed. deegaankan Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Wallaweyn waxa dhibaatada ugu weyn ahay isbaarada. maxkamadda markay timid tilaabooyinkii koowaad ay qaado waxay ahayd asalka dhibaatada meesha ahayd in laga abaaro oo ahayd in isbaarada meesha laga qaado. gudoomiye ku xigeenka dhinaca arrimaha bulshada gobolka Shabeellada Hoose ayaa kaga mahad celiyay dadaalka ciidamada xoogga dalka ay ugu guntadeen isbaara qaadista gobolka. dhammaan waxa la wixii isbaarooyinay waa la qaaday ciidamada qalabka sida iyo xeer ilaalintu iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida aad iyo aad ay u maadsan yihiin shaqo fiican ayay ka qabteen maaragtay gobolka inta dhimanna waa dhameystiri doonaa laakiin eriyada Wallaweyn dhammaan waa la qaaday isbaarooyinkii. Muqaadir Ciise warbaahinta qaranka Shabeellaha Hoose.